Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa mar kale iyo barnaamijkeenii taxanaha ahaa ee aanu ka sameynay silsiladii caanka ahayd ee Soomaaliyeed ee Guba, oo aanu go'aansanay inaanu dib u soo nooleyno iyadoo maqal iyo qoraal labadaba ah. Haddaba ujeedada ugu muhiimsan ee aanu dib ugu soo qorayno uguna soo nooleynayno silsiladan ayaa ah in dhalinteena dambe iyo dadka ay ku adkaatay inay fahmaan ereyada qaar ay la socdaan dholatuska afka Soomaaliga ah ee adeegsanayeen gabyayaashii kala duwanaa ee ka qayb galay iyo deegaanadoodii iyo meelaha ay ku kala socotay intaba. Haddaba intiinii hore ula socotay qaybtii 23aad ama gabaygii 23aad wuxuu inoo joogay gabaygii uu tiriyey Maxamed Cumar Dage, kaasoo ku yimid markii jifo ka mid ah Ogaadeenka oo la yiraahdo Reer Cali iyo jifo ka mid ah Isaaqa oo la yiraahdo Ciidagale ay istagaaleen, oo kadibna Ciidagalihii ay usoo hiliyeen Arab oo labadiiba ay nimankii Reer Cali ka awood roonaadeen. Waatuu Maxamed Cumar Dage gabaygii faanka ama tookha ahaa uu tiriyey. Haddaba gabaygeenan 24aad ee maanta ayaa waxaa noo tirinaya Ismaaciil Xirsi Guuleed oo Isaaq ahaa, kuna magac dheeraa ama lagu naynaasi jiray Ina Dube. Haddaba Ina Dube wuxuu markaan haystaa Cali Dhuux. Ismaaciil Xirsi Guuleed oo lagu naynaasi jiray Ina Dube ahaana Isaaq ayaa Cali Dhuux ku eedeynaya isaguba inuusan Ogaadeenka asxaan u sameyne xoolahana ka dhaco raggana ka laayo. Haddaba gabaygan 24aad oo uu noo tirinayo Ismaaciil Xirsi Guuleed Ina Dube oo Isaaq ahaa ayaa wuxuu ka mid yahay gabayaasha aan horey loo duubin ama YouTube-ka aan horey ugu jirin. Wuxuuna ku bilaabay sida tan: anoo dhoor leh gabay waanigii dhigay hanaankiiye, xalun bay dhambaaladu sideen dhowr ku soo ridaye, aan dhaqaajo waatuu baryahan dhabarka saarnaaye, allahayow dhawaaq runa maxaa Cali ku dheeraaday, dhadigii haweenkan ilmada qaar ka dhiidhiyini, dhashooday dagaalaan kolkay dirid dhammaystaane, wax ka dhigan qabiilkuu dhacee weli dhex joogaaye, dhammidii Ogaadeenka sow dhixid ma qaadsiinin, ma dhandhaamay reer dalal sidii dhugatadii qaanka, dheeldheel miyuu kula kaftamay dhagar intuu geystay, oo weliba lama dhuumanine dhugadna gaadhsiiyey, dhicisiya miyuu dhankaa webi u dhaafsiiye, ma dhirbaaxadii lagu dhuftuu dhaabado u raacshay, dhoolaha kolkuu uga qoslay gacal dhawaystaane, inuu shalay dhalfiifaha ka dhigay daadi mahayaane, dhalfaweynayaashuu hayiyo dhaafa gabaygiiye, allahayow rag layskuma dhirshee dhoohanaa nimanku, dhaantada iyo jiibtiyo orkaad dhalasho moodaaye, dhallinyariya waayeel kurtood wax isma dhaamaane, dhuuxowda goortay maqlaan dhaafe xoolaha ah, dhuslo orodka kaymaha xidhkii dhuuban laga baydhi, ku dhadhabe hadday dhabi sitaan dhimasho geeriyaade, aaway dhoombirkiyo maarrihii lala dhabaynayay, dhulku idin liqyaysow iyaba koodu dhici maayo, afartaa dhallaanku ha bartee dhawma kaga siiye, dhaqso hadalka kii loo yidhaa ma laha dheecaane, dhaxdin yarina meel doog leh way kugu dhawaysaaye, dhawaaq kalena way xaajadaa dhaafay madaxooda, dhudhummada ninkii kaa jabshee dhaqasho kaa haynin, gadhoodhkiinni hadhay buu Isaaq maanta dhigayaaye, waa lagu dhintaa geelayaga sida dhunkaaleede, ma dhaqaaqdo qoladii fardaa dhuuban gelisaaye, ma dhadhamin wadaadkii hartiga dhoon ka buuxsadaye, haddii dheega haaneedka sumad dheeri kaga taallo, dhurwaaguba ma cuno tuugga aan dhaqanse mooyaane, isba dhuuni waa jecel yihiin sidigta dhaameele, dhacaa laga horraysiiyayoo dheeha ma lahayne, dhirta dibadda waa kii fadhiyey 10 dharaaroode, bal dhulbahante habar yoonis muudhiinka kala gooyo, ayuu yidhi Ismaaciil Xirsi Guuleed oo lagu naynaasi jiray Ina Dube oo Isaaq ahaa una jawaabayay Cali Dhuux Aadan. Haddaba maanta inta haynoo joogto gabaygii 24aad ee silsiladda caanka ah ee Guba oo noo tirinayay Ismaaciil Xirsi Guuleed oo Isaaq ahaa
kaasoo u jawaabayay Cali Dhuux Aadan oo ahaa ninkii silsiladan caanka ah bilaabay. Fadlan hadday tahay markii koowaad aad channelka soo booqato, subscribe saar, gambaleelkana furo si aad ula socoto gabayaasha ku xiga ee kala duwan iyo silsilada caanka ah ee Soomaaliyeed. Haddaa hore ugu jidheen fiidiyowga share garee, like-na saar, fikradaada iyo waxaad jeceshahay ama silsilada aad jeceshahay in lagu xijiyo silsilada Gumana insha Allah nala wadaag.